Bayaankii Balfour uu saxiixay 2 Noofembar 1917 waxa uu qayb ka yahay casharrada taariikhiga ah ee lagu dhigto iskoolada Israa'iil iyo Falastiin. Labada dhinacba si kala duwan ayay u turjumaan. Warqadaasi waxaa loo arkaa meesha uu ka bilaabmay dagaalkii waqtiga dheer qaatay ee u dhexeeyay Carabta iyo Israa'iil. Haddaba waxaan filimkani kaga hadli doonaa qadiyadda Falastiin iyo sida ay soo martay ilaa iyo 50kii sano ee ugu dambeeyay, iyadoo soo martay dagaallo kuwii abid ugu xumaa ee dunida ka dhacay. Falastiin waxay ku taallaa meel juqraafi ahaan aad u fiican, waana meel oo Alle barakeeyay. Haddii aan ka hadalno sida uu ku baxay magaca Falastiin, waxaa Falastiin dhanka badda ka soo galay qabaa'il la oran jiray Balastia, waxaana markiiba ay ku magacaabeen Falastiin. Falastiin waxaa soo maray xukunno kala duwan oo taariikh dheer leh. Dhulka Falastiin waxaa ku wada noolaa Muslimiin, Kirishtaan iyo Yuhuud aad u tiro yar, waxayna ku wada deganaayeen si nabadgelyo ah. Dhammaadkii qarnigii 19aad waxaa soo ifbaxay halis aad u weyn, taasi oo ah in ay Yuhuudi ama Sahloniyiintii ay qabsadeen meelo badan oo ku hareeraysan Falastiin, waxayna ku talagaleen in ay kala qaybiyaan dhulka Muslimiinta. Sanadkii 1878 tirada dadka deganaa Falastiin waxay ku dhoweyd 460,000 oo dadka asalka ah, waxayna tirada Yuhuudda degneed xilligaasi dhulka Falastiin ay ahayd 3%. Wadamo badan oo reer Yurub ah ayaa waxay ku fikireen sida iskaga musaafirin lahaayeen Yuhuud badan oo kusoo qaxday dhulalkooda. Si iskaga musaafiriyaan darteedna waxay ku fikireen inay Yuhuudda u sameeyaan hal wadan, laakiin halka ay dejin doonaan. Sanadkii 1896 waxaa la doortay wadamo badan oo la dejin karo Yuhuudda, waxaana wadamadaasi ka mid ahaa Falastiin, Argentiin, Uganda, Mozambique iyo wadamo kale oo badan oo ay Soomaaliya ku jirtay. Waxaa Yuhuudii xilligaasi iskugu yimaadeen shirar badan oo isdaba joog ah si ay go'aan uga qaataan halkii la dejin lahaa Yuhuud badan oo ku kala firirsan dunida dacaladeeda, waxayna ugu dambeyntii doorteen Falastiin. Yuhuuddii waqtigaasi jirtay waxay xoogga saareen Mareykanka iyo Ingiriiska si ay ugu taageeraan fikirkooda ahaa inay degaan dhulka Falastiin. Dagaallo badan iyo xasuuq loo geystay dadka reer Falastiin, ugu dambeyntii gumeystihii Ingiriiska wuxuu iskaga baxay dhammaan dhulka reer Falastiin. Sanadkii 1948 Ingiriiska wuxuu ka baxay dhulka Falastiin, kadibna waxaa Falastiin ka dilaacay dagaalkii Carabta iyo Yuhuudda. Markii uu dhammaaday dagaalkiina waxa ay Yuhuudda qabsadeen dhulkii Falastiin boqolkiiba 78, waxayna ay ka dhisteen dowlad ay ku amar taagleeyaan. Isla markiiba Mareykanka wuxuu ictiraafay Yuhuudi. Sanadkii xigayna Yuhuudda waxay ka mid noqdeen qaramada midoobe Yuhuudi oo loo aqoonsaday wadan jira. Mareykanka ilaa iyo hadda muu bedelin go'aankiisa uu ku taageerayay Israa'iil, isagoo Daarusalaam u aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Afartii madaxweyne ee iskaga dambeysay Mareykanka, mid walba wuxuu ku kambeyn gareeyaa inuu Israa'iil aqoonsan doono oo una dhammaystiri doono alab nooc kasta ay ku xasuuqi lahayd maatada reer Falastiin. Jerusalem is still the capital of Israel and must remain an undivided city accessible to all. As soon as I take office, I will begin the process of moving the United States ambassador to the city of Israel as chosen as its capital. I continue to say that Jerusalem will be the capital of Israel, and I have said that before, and I will say it again. And Jerusalem will remain the capital of Israel, and it must remain undivided. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. أنت وكل جيشك أنتم كاذبون. أنتم ليس في قلبكم ذرة واحدة من الرحمة. أنتم أيها الفسقة الظلمة، أنتم يا أبناء اليهودية. والله سنحرر فلسطين. والله سنسجد ركعات شكر لله، ولكن في المسجد الأقصى إن شاء الله سنحرر فلسطين وسنطردكم